marka taas haddaan ka soo tagno waa soo koobaynaa hal xadiisaan ku darsaynaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu wa ilaa takun fitnatun fi lardi wa fasaad xadiis sanadkiisu wanaagsan yahay waaye hadduu idiin yimaado oo gabar idinka soo doono nimaa diintiisa raalli ka tihiin iyo akhlaaqdiisa bal fiir nabiga calayhi salatu wasalaam qowlkiisa diin iyo akhlaaqow sheegay fazawijuuhu yow dhahay heer qabiil fulaan ah ama heer hebla ka dhashay ama maal haysta iyo laa ma dhihin rasuulka calayhi salatu wasalaam ninka gabadha la sii hayow yahay waa nin diintiisa laga raali yahay akhlaaqdiisa laga raali waxaa arkaya hadda wiilkayna khayr allaha siiya abtirsiimadiisa mashaa'ikh macallimiin ka macallin ka sheekh cilmi intaasuu ku abtirsadaa alxamdulilah dadka maanta laysu keenay waa dadkii laysu rabay waay oo maaragtay diintii iyo akhlaaqdii waxay culamadu yidhahaan diinta kaliya lama dhihina akhlaaqda xaa loogu xejiyey akhlaaqdu waa laga maarmaan maxaa yeele haweenta waxaa laga abuuray nabigu suu sheegay alayhi salatu wasalaam feer qaloocan nimaan akhlaaq fiican lahayn oon sabar lahayn ma haysa karaayo waxaa la rabaa akhlaaq fiican iyo in lagula dhaqmo gabadha gabar yar waaye gabar aad iyo aad u yar waaye ani hadda marka sheekhu ii sheegay mar ay ugu dambaysaba gabadhi ma hadda dhow ciyaalka aheeday waa yaababa aniga marka ee sanadku way iska hordaayaaba ujeedaa marka alxamdulilaahi waxaa lagaa rabaa wiilkaygiiyow dadaal fara badanaa lagaa rabaa nasiibna waaye maaragtay yaa waxay taagantaha markaasi qofkii heli kara ilaahay yaa mahadle alxamdulilaahi waxaa kaloon ku faraxsanahay inay maanta dadku hadda inkastoo guur sokeeya ma leh laakiin xaaladaha annaga moogtahay mujtamacan aan la soconnaa wax kastaa naloo soo sheegaa soomaalida isbeddelkeeda dalka intaasaan joognaa alxamdulilaahi sheikha marka uu ii sheegay waxaasoo aisha moogtahay gabadha yaa naga guursaan markaasu ahalka waaye uri farxad labaadaan sii farxa marka dadka kale wax ma diidan innaga oo hadda nabiga calayhi salatu wasalaam man tardow diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu rasuulkeena calayhi salatu wasalaam gabadhiisi faadimaheeda oo haweenka ummatulmuxamedkii ugu khayr badan aheeday amase xataa bacdu culummo ay qabaan xataa ummadaha kale xataa laakiin sida raajixa sayidatu nisaa'i haadihi lummati sayidina cali ibnu abdaalib gabadhiisii rasuulka alay slam rag badan oo u tartamaya macno waaweynaa ku jira marka adinkane alxamdulilaahi inaad meeshaas macnahaas fahamtiin waa la rabaa ilaahay yaa mahadle waa fahmi doontiin fasawijuuhu yow dhahay rasuulku ku nikaaxiya haddaadan yeelina fidnaya fasahaada dhacaya hadda alxamdulilaahi wiilkeenna waa ninkii maaragtay la doonaayey ninkii maaragtay diinkiisa iyo akhlaaqdiisa aan ka raalli ahayn waaye waxaan qaadanay marka amarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam saareeday amarkii rasuulka fasawijuuhdi u qaatay haddii laga warraba jawka wixii diinay isugu yimaadeen fiirsha bal horta diinay isugu yimaadeen a'immada oo afarta oo madaahibta laga raali yahay ah imaamu axmed mooyaane inta kalentood waxay ictibaariyeen diintay ictibaariyeen imaamu axmed xoogaa haddii sanadkiisa wax ku jira almaalu alxasabu ah maalna waa la fiiraa laakiin inta kale maxaa leeyahay almaalu dilun lianna almaala dilun saayino maal hoos suulaya waayo shalay waad ogtihiin dad maalqabeen ahaa maanta aan xaba haysanin dad shalay fuqaro ahaayo maaragtay jidadka iska jooga maanta hebel aa leeya waa ninka ganacsada weyn abu aa leey birinow inuu sii waayo dhici karta marka maal ictiraaf ma leh ee sharafta qofka uu ka soo jeedo iyo maaragtay diinta iyo iimaanka muhiimtaasa gabadhana markii nabigu calayhi salaam ka hadlay tunkaxu lmar'atu liarbacin limaaliha walijamaaliha walixasabiha walidiiniha marka u dhahay fadfar bidaati diini tari marka uu soo gaar rasuulku waa u dhahay fadfar bidaati diini tarimad yadaa midda diintana ku guulayso markaasaad liibaanaysaa ayadina hadda alxamdulilaahi diin wax walbay baratay alxamdulilah mutacalimad waaye marka hadda labadii dhinacba labadii laysu rabay oo la ammaanay oo rasuulku ammaanay alayhi salatu wasalaam ilahi rasuulkiisa labadaas waaye waxaan ka rajahaynaa marka inay noqon doonaan mustaqbalka labadii ugu fiicnaay marka insha allahu tacaala sidii la rabay oo ugu wanaagsaneed ayay isu waafaqday gabadhiina waa binti daatu diin ah wax kastane oo xasabka iyo sharaftiina waa leedahay bintu caalim hadda markii culummada fuqahada gabdhaha markay maaragtay sharaftooda ka hadlaayaan oo kufka akfaafta laga hadlaayo bintu caalimaa la leeyahay markaas waa midda ugu sarraysa waayo
عالم الحمد لله مارت يا شيخ ضنك واجوبته لكن الحمد لله الشيخ أنا شاور حسن ما هو شيخ الصومالي ومشهور سومالي أنا نكو حاوي وحان هاي مارت ألف ليه ده كان وحان فوني أنا شيخ الصومالي ومشهور شيخ أبو خروان الحمد لله نور كما أنت بحاي أسقواي أنوار بدن علماء إلهي واجوبته علماء إلهي والحمد لله ولا دقيها لكن مارت يا مركي لو هذا رنته qofka waxa uu ku sugan yahay la fiishay sida umada uu anfacay rasuulka kaleey salaam ayaa waxa la weydiiyay man ahabul ibadi ila allah adoomanka ilaahay ya agtaada loo jecel ya ilaahay xaqiisa loo jecel badan yahay ahabul ibadi ila allah anfa'uhum al ibadi wa rasul adoomanka ilaahay xaq Allah waxa loo jecel midka adoomanka ilaahay anfac hada wax la isku anfaco waxa uu weyna waxa waaye diintaas ilaahay waa kitaabka ilaahay sunnada nabiga iyo wixii kale oo ka sii faran سيدا ما أنت الحمد لله دين تلوجا برت عضلوجا برت مجر أحب العباد إلى الله ساس وكنا قاوى شهادة رسولك عليه الصلاة والسلام ساس أنا وطاسا راعي نايموك وهقيب جرى إلهي يا وهي أنا جنا لسيان كهذلينا مرك إلهي ما دي سوى سوق كوبينا إذا ما يلا خولا بدن ليه جمعنا أي تاي إن شاء الله تعالى ويل كينا إلهي إذا كيس دردارا ثم دردارا ثم دردارا انت نوع علماء انت نوع هذا الشيء والله وعلي حافظنا هو ذاك ما قادر دي له سكر لي شيخ ولا دي لي هي واحد له خلاصه او ماشان لا كeenana marka adigana alxamdulillaah ya adu ahalna la ahadana xirti siita marka meeshaas wax ka bii ma doonaan odayaashana khayr Allah siiyo oo akhyaarta oo ka soo qayb galay meesha oo ahalka aad iyo aad ma sha Allah hatta aniga hadda ka hor amaartay Sheikh Abdullaahi حاو أي مارتي ها نجحتور كمان نكون كوني كاحين شو قرأ مقنعي سوتنا من هالكاس موقتها وسد عنها هي وهاي المركة لين عطها موريانا هاي وضدك ضع يوتيوب هذا أنا شيء أبوك روح كلو إلي هاي وقرابته شابوك أمر شابوك روح حسابي حتى هذا تورا وحاجة قاطع يا سوبيا هاي هذا نبي شيء يجوكته مركة الحمد لله خير الله ينسيه وصوكم هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. maaragtay waxay ka soo qayb gashay sheekhaydna ka timiday sheekhaan intaas oo awlaade ka timiday barakay maanta isku tagta waaye iyo taariikhda magac ku siyaasada Allah naga aqaatiha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad